farxad weyn bay noo tahay maanta magaalada muqdisho caasimadda gobolka banaadir aan ku soo dhaweyno fanaaniinta qiimaha iyo qaayaha leh ee nooga yimid dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia magaalada Jigjiga Suldaan Seraar iyo waliba fannaankeena Xariir waxa halkan jooga abwaanadii fanaaniintii isku duuban suxufiyiintii oo idin leh ku soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo dhawaada magaalada Muqdisho waxaan u maleynayaa waliba waxaad ku soo aadeen waqti aad u fiican oo ciidii ay soo dhowdahay fanaaniin kale oo timidna way jiraan marka waa kan saaxiibkiina Khadarkeeyo abwaankii halkan fadhiya Cabdi Dhaanta ayaa halkan jooga iyo gabdhaheena marka waxaan idin leenahay ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay baxda saxaafadda inaad kugu soo dhaweyno magaalada Muqdisho wax badan waa idin daawaday fans badan waa leedihiin reer Muqdisho aad bay idin jecel yihiin marka waxaan u maleynayaa toddobaadkan ciida in aad noo soo bandhigi doontaan fankiina iyo suugaantiina iyo waliba waxyaabo aad u fara badan oo shacabka reer Muqdisho iyo Soomaaliduba aad ugu farxaan abwaan hay ما شاء الله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قلبت هوتيلك حاوتاكو waxaan ku soo dhaweynaynaa fanaaniin mujtamaca Soomaaliyeed aad ugu qaaliya annagana aad noogu qaaliya anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed iyo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed iyo magaca abwaaniinta Soomaaliyeed ku soo dhaweynayna magaalada Muqdisho hoteelka xaawataako Suldaan Seraar Guhaad iyo fanaan Xariir Axmed Cabdullaahi waxaan leenahay soo dhawaada dalku waa dalkiini dadkuna waa dadkiini magaalada Muqdisho ku soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan leenahay fanaaniinta martida inoo la soo dhaweeyo gacmo furan baa la ku soo dhaweynaa dalkiini baa timaadeen caasimadda magaalada Muqdisho timaadeen farxad ku jooga farxadna waxa weeye barnaamijyadeena iyo hawleena ku qabsada waa idin garab taaganahay hil iyo hooba wax kasto aan nooga baahataan hadaan reer Muqdisho nahay ana magaca reer Muqdisho ku hadlaya shacabweynaha reer Muqdisho waxaan leenahay si fiican oo kale iyo laaba idin soo dhaweynaa magaaladiini caasimaddiini barnaamijka qaban doontaan ciidka hadii la hadmo waa idin kala qayb qaadanayna hadii la garabkiina taaganahay guuleysta bismillaahir rahmaanir rahiim aad bay farxad noogu taorta inaan soo dhaweyno fanaaniinta nagu qaaliga ah bulshada Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan aad qaaliga ugu ah suldaanka Suldaan Seraar iyo Xariir ku soo dhawaadaan leenahay gacmo furan niyad sami iyo kalgacal reer Muqdisho ay idin hayaan aad baan idin soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanahay maanta magaalada Muqdisho inaad timaadaan ayadoo xiiso badan la idin qabo bulshada Soomaaliyeedna aad idin jecel yihiin aad baad mahadsantihiin baafo abwaan Cabdiraaqilka iyo abwaan Cumar Bashiirba hadal badan haan ma buuxiyo waa intay sheegeen iyo inta kale oo ku darayo soo dhawaadaan leeyahay saaxiibaday Suldaan Seraar iyo Xariir marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka xigta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dalka hooyo aan ku soo dhaweeyo walaalahayga qaaliga ah kala ah Xariir iyo Suldaan Seraar oo ah laba fanaan aad ugu qaali ah waxaan kaloo rajaynayaa fanaaniinta kale oo ayagana maqan inay dalka sidaas u yimaadaan dalkooda hooyo kuna qabtaan bandhigyada quruxda badan ee lagu maaweelinaya shacabkooda iyo dadkooda quruxda badan waana mahadsantihiin waxaan leeyahay mar waliba soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada haddii aan nahnay bahdi Muqdisho xagga abwaaniinta ama fanaaniin ama muusashino intaba annagoo iskugu jirna waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka dacaladiisa ka joogan gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho ku sugan waxaan rabaa maanta inaan halkan ka ku soo dhaweyno walaalaheen fanaaniin nagu qaali ah oo ka imaaday dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga oo halkan u yimid in ay ku qabtaan bandhig fanaadkooda ay ku soo bandhigaan maxaan dhahay show ay ku qabtaan magaalada Muqdisho ayaan u fadhinaa halkan inaan ku soo dhaweyno Suldaan Seraar Guhaad iyo Xariir Axmed Cabdullaahi oo ah dad fankooda aad loo xiiseeyo waxa halkan ku soo dhaweynaya fanaaniinta Soomaaliyeed abwaaniinta Soomaaliyeed iyo wariyaal badan oo Soomaaliyeed dad aad u tiro badan oo magacyadooda aan soo koobi karin baa halkan ku soo dhaweeyay ayagana waxaan leenahay magaaladiinni baad timaadeen caasimadda ummadda Soomaaliyeed baad timaadeen de marti kuma tihiin waxay u imaadeen magaaladiinni baad u imaadeen
showga aydu qaban doontaan insha allahu dadku way la socon doonaan laakiin waxay hadda u yimaadeen inay show qabtaan marka waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaada waxaana aad ugu mahad celinaynaa qof kasta oo kaalin ka geystay imaanshahoodii iyo maxaa la dhahay inay magaaladoodii inay yimaadaan fanaaniinta kale Soomaaliyeedna waxaan leenahay magaalada hala yimaado wadanku waa nabad dalku waa idin baahan yahay adinkana waad u baahantiin wadanka imaada wad mahadsantiin السلام عليكم ووضع السلام يا دمان انت سو دوينيسay walaalaheena qaaliga waxaan leenahay ku soo dhawaada dalkiina hooyo waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada wax kaloon dhahmo garanayo aad baan u faraxsanahay waxaan bartan ku soo dhaweynaynaa laba fanaan oo nagu qaaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogan xariir Axmed iyo Sultan Seeraar waxaan leeyahay soo dhawaada wadankiina baad timaadeen aadna waan idin jecelnahay waxaan leeyahay aad iyo aad soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما waxaan salaamayaa shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta joogan fanaaniinta abwaaniinta bahda fanka qodobta horta aad ayaan u salaamayaa waxa kale oo salaamayaa martiqaadka quruxda badan ee abwaaniinta iyo fanaaniinta isku jira ay noo sameeyeen waxaan leenahay dalku waa dalkayagii waan ku dhownahay waa wadankanagii dadaan aad u jecelahay baan u nimidnay marka waxaan dhihi lahaa soo dhaweyntiina qaaliga kulli kama maarmi karo waan ku soo noqon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waayo fanaaniin ugu qaaliya abaniin noo sii helanada ayaan u nimidnay wadankuna waa wadankanaga kulli waa hooyadii Soomaalida oo dhan xamar nin kasta oo Soomaaliya waa meeshiisii marka aad ayaan idin salaamayaa abaniintii iyo fanaaniinta isku timid aadka qiimaha noogu leh dhammaan shacabweynaha aad ayaan u salaamayaa iyo kameeramanada aniga noogu qaaliga asda fiican xudubay بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad waxaan u mahad celinayaa asxaabta quruxda badan ee hareerahayga fadhisa ee isugu jirta abwaanada wariyaasha fanaaniinta qaaliga ah aad baan ugu faraxsanahay inaan ani ahaan maanta aan dhex taaganahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho farxad bayna ay tahay in badan baan ku rajaweynaa in badan baan ku taameeyay inaan soo dhex istaago laakiin alxamdulillah maanta ma dhex taaganahay iyadoo si qurux badan aniga iyo walaalka xariirna loogu soo dhaweeyay de Soomaaliya waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed meeshii looga arriminay ummadda Soomaaliyeed meesheedii weeyaan aad baan ugu faraxsanahay dhex taaganahay insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan qaban doonaa barnaamij ciida insha Allah haduu Ilaahay raali ka noqdo barnaamij qurux badan oo dadka ayaga iyo taageerayaashayada iyo aan waqti fiican wada qaadan doono insha Allah haduu Ilaahay ka noqdo maalinka ciida habeennimadeeda insha Allah